wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayna qayb ka ahayeen madaxda ganacsatada maamul goboleedyada dalka ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xogayaha guud ee ganacsatada Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo soo dhaweynta kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay oo wafdiga ganacsatada soo dhaweeyay wadana Shaafi Raabi Kaahin waxa runtii mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maanta inoo suurtageliyay in wafdigii muddo aan sugaynay ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed qaybtiisii ugu dambeysay oo uu hogaaminayo madaxweynaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee saaxiibkay Gabayre gudoomiye ku-xigeenada rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamed Caydiid Cabdirashiid Caynaanshe Galambe iyo madaxda Sheekh Axmed gudoomiyaha rugta ganacsiga Koonfur Galbeed ay wada socdeen iyo madaxda gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir Ali Kawqori shirkadaha waaweyn ee walaalkay Cabdisaaq Ali Warsame Xaaji Maxamuud Cabdi Fataax iyo ragga kale iyo shirkadaha kale dhammaan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo soo dhawaada wafdigii ka socday ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Kismaayo xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee ganacsatada Jubbaland sharafta badan leh halkan saakay wax badan lagu sugeysay mas'uuliyiinta kala duwan ee rugta ganacsiga gudoomiye ku-xigeenada rugta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiyaasha rugaha ganacsiga ee Soomaaliya sida Puntland Jubbaland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Banaadir iyo ganacsatada guud ee akhyaarta konsulka India iyo saaxiibkiis iyo wariyaashii dhamaantii waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi farxad inoo tahay maanta inaan anaga oo wafdi ballaaran ah oo ganacsatada Soomaaliyeed oo rugta ganacsiga Soomaaliyeed hogaaminayso inaan soo booqano goboladeena maamul goboleedyada mid kamid ah oo kuwa ugu culus ah waliba Jubbaland inaan maanta soo booqano oo halkaan ku soo dhaweey farxad inoo tahay waan uga mahad celinaynaa walaalaheen ganacsatada Jubbaland intaasi kadib ayaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxa ay kormeer ku tageen dekedda magaalada Kismaayo halkaasi ay kula kulmeen doon in muddo ay haysteen burcadbadeed Soomaaliyeed iyagoona halkaasi kula hadlay shaqaalihii doontaasi burcadbadeedda laga soo sii daayay saarnaa wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shir ganacsatada Soomaaliyeed ugu furmaya magaalada Kismaayo aadan maxamed xasan wararka STN magaalada Kismaayo.